بسم الله والحمد لله صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهج إلى يوم الدين وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحين كجرنا tobankii ugu khayrka badnaa sanadka ashra dilxij maalmuhu kala fadli badan dadkuna kala fadli badan waqtiguna kala fadli badan alxamdu lilah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa fadliga bixiya marka maalmahan aynu ku jirno muslimiintu maalmaha ay leeyihiin waa maalmaha ugu fadliga badan la weeye waayo waxaa ku jira yowmu carafa waxaa ku jira alxaju alakbar subxaana allah muslimiinta kii ugu dheeraa iyo kii ugu gaabnaa muslimiinta kii ugu madoobaa iyo kii ugu caddaa kuwa ugu indhaha waaweynaa iyo kii ugu indhaha yaryaraa bijamiici anwaacihim kii ugu adduunka badnaa iyo kii ugu faqiirsanaa iyagoo malaayiina ayay ilaahay ishortaagayaan oo nin waliba uu xidhan yahay laba maryood oo cadcad wa ficlan waa maalmaha alxaju almabruuru laysa jazaauhu ila aljanna rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay xajka la aqbalay ee shuruuddiisii la fuliyey waa janno ayuu leeyahay qofku ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam idan maalmahaasi maxaa looga baahan yahay dadka muslimiinta ah tobankan cisho ee aynu ka qaniimaysanaysnaa ee u baahan in aynu ilaahay ugu dhowaano ayaynu meelo ka mid ah soo qaadan doonnaa xadiiska alimaam albukhaari uu wariyey can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaal ma min ayaamin alcamalu الsaalixu fiiha axabu ila allahi من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يعني ذهب إلى الجهاد فلم يرجع هو وماله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جرتو مالمو camalka la qabtaa uu ka khayr badan yahay maalmaha tobanka ah ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiskaa saxiixa ee bukhaari uu wariyey oo ilaahay agtiisa looga kalgacayl badan yahay wala aljihaadu fii sabiilillahi yaa rasuula allah saxaabadii ninkii dhiigga bixinayey ee naftiisii bixinayay bay xusuusteen waxna yaa rasuul allah qofka muslimka ah ee jihaadka ku jira ee naftiisa bixinayana bal ka waran wala jihaadu fii sabiilillah qofkaasina maalmahan camalka la qabtaa ka khayr badan ilaa rajulun mid keliya mooyaane nin intuu jihaadkii galay ku istishaaday oo hantidiisiina halkaasi ku baxday oo isagii iyo hantidiisii aanay waxba ka soo noqon kaa mooyaane inta kale oo dhan camalka la qabtaa ka fadli badan ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam idan inaynu ka qaniimaysanno min salaatin wa siyaamin wa sunnatin wa sadaqatin wa indimaami nnaasi bacduhum ilaa bacdin wa cafwin camal wal oo la qabto waxa weeye waa maalmaha lagu faa'iideeye weeye waxaa ku jirta yowmu carafa oo عرف الله تاجيه الحج عرفة
rasuulku wuxuu yidhi xajka gebigiisuba waa carafa weeye buurtaasi ilaahay xikmadda dhigay ee muslimiinta oo dhani nin waliba uu isku dayayo inuu is-hoostaago oo ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo laba go' oo cadcad sita inuu ilaahay ku baryo subxaanahu wa tacaala su'ila rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam can sawmi yowmi carafa looma ogolo waa karaahiyo dadka xajka jooga laakiin innaga ayaa sunna mu'akada laynooga dhigay dadkeenna aan xajka joogin rasuulka waxaa la weydiiyey maalintaasi sagaalaad ee carafo la taagan yahay ka waran yaa rasuul allah qaala yukafiru asanna almaadiya waalbaaqiya sanad dhan oo allahuma salli calaa sayidina muxamed lagu jiro dembigiisii ayay kafaaro u tahay sanadka soo socdana kafaaro ayay u tahay buuri rasuulku calayhi salaatu wassalaam yowm waaxid subxaana allah soonku camal laynagu addoonsaday oo aan bani aadamka faa'iido u lahayni ma jiro waa ka maanta coronaviruskii aad arkayso wixiiba maxay ku soo ururiyeen gaaladii jidhkaaga nadiifi saani u sandaarso faraxalo subxaana allah 1400 sannadood ka hor ayaa weysadii layna faray subxaana allah intiibaa maanta iyadoo intaasoo boqol oo sannadood laga soo wareegay bani aadamkii xanuunkaa maanta ay ka yaabeen ay yidhaahdeen weysadii qayb ka mid ah ayuunbay tahay in la laasimo subxaana allah inay hawyari soo gacmahaaga soo maydh wakul biyamiinik wakul mimaa yaliik wasami illaah rasuulku markuu dardaarayay soo faraxalo oo waxa weeye midigtaada ku bilow oo bismilla dheh oo dhinacaaga raashinka ka cuno dhinaca kale ha gaadhin buu ku lahaa rasuulku calayhi salaatu wassalaam nin scientist oo nimankan dhakhaatiirtae ruushka ka mid ah ayaa xanuun raashiya looga taag waayey marka waa qarnigii labaatanaad in 21 ahayn buu ahaa dadkii oo dhan wuxuu ku yidhi bil baad maalintii iska daynaysaa raashinka haddaad caafimaad doonaysa waa bishii ramadaan habeenkii waxaad doontay iska cun subxaana allah waa kaasi weeye low anna awalakum waaaakhirakum wainsakum wajinnakum kaanuu calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum maa saada dalika fii mulkii shay-a haddaa wada abuubakar noqotaan aniga waxba ima taraysaan riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan salaad walba rasuulku inuu soo maydhan jiray oo macnaheedu ay tahay 5 goor inuu maalintii maydhan jiray rasuulku calayhi salaatu wassalaam islaamku sida uu nadaafadda uga hadlay idan wax kastoo laynagu addoonsaday xikmad baa ku jirta beri dhoweyto oo sannada ay ka soo wareegeen ayaa exercise-kan la sameeyo ayaa nin ka mida ninkii trainingka siinayey ninkii uu la hadlayey ayuu hi xubin baan exercise-kaagii weli gaadhin haddaad doonayso xubintaasi in exercise ay samayso spinal cordka halka ugu dambaysa waxa weeye waa lafdhumuqda la yidhaahdo lafdhabartaa halka ugu dambaysa exercise-keedu waa markaad sujuudda buu yidhi maba dhaqaaqda buu yidhi wax kastoo la sameeyo ilaa qofku uu sujuudo subxaana allah idan waxaynu uga soconnaa wax allaaliya waxaa ilaahay inagu addoonsaday waa wax qofka bini aadamka ah u dana haddaa wada abuujaal noqotaanna boqortooyadeeda waxba ka dhimi maysaan haddaa wada abuubakar noqotaanna boqortooyadeeda wax ku kordhin maysaan ee idinka maslaxaddiinna weeye subxaana allah ayaa الله إن بدن كور رمي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن وحيالها ما أنت إن لها بون محاكم إذا
ee tobankan cisho aynu ka faa'iidaysanayno waxaa ka mid ah ee ihmaalka kaga jira bulshadeenna birrul waalidayn in qofku jannada uu ka raadiyo labada waalid subxaan allah في سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي بني آدم كوحن أطر دارني ورلبدا والد أصبفا إلهي فضلgiisa marka laga yimaado jiritaankaaga iyo barbaarintaada labadaada waalid baa leh u samafal ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala xamalatu ummuhu wahnan ala wahn hooyadii way xambaartay calooshay ku xambaartay wahnan ala wahnin itaal darro kala la dul saaray ay caloosha ku xambaartay وحمله وفصاله 30 شهرا إلا أي ناس كقولنيسي صدم بلود بيقاضتي أي إلهي قرآن كقصة مركا علماء وحي إلهدين قبل هذه اللح بلود كلها شو أفريلات وانا سنوشنتي ولا بس نضاد لح بلود مركا لوجين وصدم أنت وغير قفت مري وكل لكرا ولح بلود ilmuhu haba yaraade laakiin ilmo nool ay ku dhali kartaa waa 6 bilood bay yiraahdeen culimadii saasay 30 bilood ku yimaadeen rasuulku kaleey salaatu wasalaam xadiiska al-Bukhari iyo Muslim ay wariyeen aan ibn Mas'uud nibaa yimid nabiga kaleey salaatu wasalaam man ahqqu an-naasi bi husni sahabati ya rasuulullah nibaa Allah dadka yaa iigu dhow hooyada buu rasuulku kaleey salaatu wasalaam ya rasuulallah yaa ku xiga hooyada buu ya rasuulallah yaa ku xiga hooyada ya rasuulallah yaa ku xiga thumma abuuk saddex goor markii rasuulku hooyada yiri ayaa thumma abuuk hooyada dabeeto aabaha buu rasuulku kaleey salaatu wasalaam في مجمع الزوائد sida ku sugan صحابي الله يقال بريدة وحنا نبى النبي عليه الصلاة والسلام ويمد وحنا يا رسول الله حج قال مريا هو يدي وضع أركيا مركا تورتو كسده هو يدي هل أديت حقا يا رسول الله وحنا نلقي عن صوم مري كوليل كدعية هذه وصلته لي بلغوا توري لها وصلت أسوي بسلان لها يقول يا رسول الله حقي دي مقبل لا ولا طلقة واحد مركليو أي كدهتي ما تكذب بقول رسولك عليه الصلاة والسلام اسكت إن أبال كيدي كتيو إنك ما أنت محاجرة معلم والبهويو سبحان الله بعسدته أياكو يمنيسا waxay u dawarsanaysaa inan jaamacadeed subxaan allah hooyo wareegaysa oo ilmeynaysa oo inan 20 jir gaadhay subxaan allah oo ka warwaraysa halkaa taagan 12 subxaan allah miyuu soo hoyday inanka walordoo taga suuqa waxa taagan inta hooyo buu siibinaysa inama dhashay سبحان الله اسكدا wax loo qabto iskada janna laga raadiyo inta hooyo leeleysa la cadada wala xas waxa runtii xusud badan waqtiga Usmaan bin Affan radiyallahu anhu ayaa waxa la yiraahdaa waxa go'ay abqaalka timirta ilaa Madiina ganacsiga ugu weyn ee waqtigii rasuulka jiray waa xoolo iyo timir
saddex bilood oo isku soo wareegay iyo intii aanu jihaad ku jirnay al-aswadaan labada madmadow baanu nolosha ku soo qaadanay ayay saxaabadu yidhaahdeen waa timir iyo biyo subxaan allah marka timirtu waxay ka mid ahayd asaasiyaadka subxaan allah asaasiyaadka waaweyn ee runtii noloshii dadka muslimiinta ay ka mid ahayd geedkeedii abqaalku wuxuu gaadhay intuu kala go-ay 1,000 dirham 1,000 dirham wakhtiga aynu ka warramayno 10,000 oo doolar oo maanta ay u dhigmayeen subxaan allah dabeeto saxaabiga loo yaqaano usaama ayaa hooyadii waxay jeclayd abqaalka timirta dhuuxiisa ayay isticmaali jirtay dabeeto waxay ku tiri dhuuxii baan u baahanay usaama binu sayid oo dhuux sida ayaa nin saxaabiya la kulmay wuxuu waa reerdhe geedkii abqaalkiisu 10,000 yani dirham buu maraya waa maxay dhuuxanaad sida wuxuu hooyaday baa iga dalbato hadday igu tiraahdo intaan awoodayo abqaalka madiina yaallo oo dhan dhuuxiisa la kaalay waa keeni lahaa buuri usaama binu sayid isagoo runtii markaa uga jeeda subxaan allah يعني فضل اللي هي هويده وحسد مضن نك تابعي قال لي لا ويس القرني الإمام مسلم حديث كأولي كشرة الرسول كوري ورنكاسي حتى الله قلنتان هذا هو التابعي عن صحابي أهين يمن بوكا يمن يعني هيدين دم إلهي دم الله فيدين ويديه نك فضل يسمحوها حتى علماء وحل وكان له والدة هو يبر بها كان له برس فبرئ به إلا موضع درهم وكان له والدة هو يبر بها حديث وحا وشيغيا نكا التابعي كان صحابي هين الصحابة دي اللي هي إلهي هيدين دبلاف ويديستا marka hore rasuulullaahi ilaahay baa magartay ka qaaday in shilin leew baa ku hadhay buu rasuulku oo ku garan doontaan wa kaana lahu waalidatun hooyadii siduu u ilaalinayay ayuu awoodi kari waayay inuu u yimaado nabiga kaleey salaatu wasalaam oo halkiisu ku islaam ilaa saxaabigu waa nabiga arkay oo rumeeyay baa ila saxaabi taabiciguna waa nin saxaabi oo nabiga arkay oo nabiga rumeeyay baa la taabici marka saasuu taabici ku noqday haddana Umar bin Khattab maalin walba sugayay inuu la kulmo inta kaliya fadliga ee xadiiska saxiixi uu sheegaya ee lagu daba taagnaa ee xadiisku la tilmaamay wa kaana lahu waalidatun warwaalidka ilaaliyo oo markaad guriga gasho ninkii maanta hooyo la hawlo si badleeday horta madaxa ka dhunko haddaanay meel kula deganayn la maalin walba soo maro madaxa ka dhunko iyo duceed walka doonaya inuu gaadho amalka uu doonayo sida dadkii wanaagsanaa aynu ku hayno waxyaalaha amalka saalixay maanta loo baahan yahay waxaa ka mid ah in dadka muslimiinta jilicsan loo gargaaro oo aynu kaga faa'iideysanayno 10 kan cisho حديث الإمام الطبراني أولي بيهقي حاكم مختصرا أولي هو صحيح الإسناد عبد الله بن عباس ومساجد كفرية أيان المسلمين هل كاك سوكرا مركا لبا رواية waxay oranaysaa sida in loo fadhina 10 lagu jiro riwaayada kalena waxay oranaysaa kaana mu'takifan masaajidku i'tikaaf ولكن مركم معتكف في هيدي لما وقلين مساجك كبحو سبحان الله انت دي اعتكاف قونا مالي نكا مسلم كي وكان كئيبا حزينا وجهي سكبوها ونمرقوني ابن عباس موسى فلسطين عبد الله بن عباس سبحان الله وحبر هذه الأمة وضدك
ملامح الوجه وعن سايكولوجي قايل هذان فهمي قفك وجهي سو حكم وقضى مالك يا ابن أخي حديثك وحاوت المامية محاك وقول عي الذمر ويسن تايبول وحول مركا أرهن عضق بوشا يقول لك هبل أيا وحي قسيهم بول وحا كدحية ننكاسي لقد نمين يحديثكم وشيء عبد الله بن عباس حديثكم وحط المامين وننك قرانيو طيب توحى الله إلى هذا سبحان الله عبد الله بن عباس نكي مسلم كاها قعنتو قبتي بالله إله إن كينو بويل سبحان الله روايات قار waxay oranayaan way yaabeen dadkii 10 ka uu akhri riwaayadka qaar koodna waxay oranayaan way yaabeen nimankii muslimiinta ku ogaa inuu mu'takif yahay looma ogolay inuu baxee sidan degdegay uu markii Abdullah ibn Abbas u baxay ninkii bay Israa'iil hawshiisii buu meel ku soo tiiriyay subhanallah markii uu soo noqday أيو حديث كان آخر رسولك عليه الصلاة والسلام وحل ويدي صببت ودقدق وقبح من قضى حاجة أخيه حتى بلغ فيها فهي أفضل من اعتكاف 10 سنين في هذا المسجد ومساجد رسولك عليه الصلاة والسلام نينك قف مسلمة وحو أودي يدنتي سصور ميا إلا وحالة أودي لضغمات وصلي حتى بلغ فيها إلا أردم يستر فهي أفضل من اعتكاف 10 سنين في هذا المسجد إذا كفض بدن طبعا صلوات والله فردي مساجد رسولك عليه الصلاة والسلام بدك الدين تفهميه دين تبرك حتى الله قلت لك يا حيوانك بني آدم إنه وحلقوا تاره أي إلهي قلت لك ما أعظمك وأعظم حرمتك حجر الأسود كان وصحابتي واويني بل انت قفتوني سيني كلهم كتاك محاكا فضل بضل محاكا حرمة بضل ولكن رجل مسلم قف مسلمة أو كأوغيرة أي حجر الأسود كفضل بضل رقا حضركتي قف ولو مسلم أو أوذية صورنا كان لقولي مركز حج كتكتب كأنا أودي إنه حلال لخذك الصلاة لكن هذا قاعد يسوي نتصور كتا ويكون بنانته لقى حقيمة الله قف مسلمة كفضل بدل وكحرم بدل وايو دينته وحلو قلت لك لئن تدك وحلو ترى بل كم مسؤول كور كوي مسؤول كاها بختي يلا بدل النوت كله فري حاركي سبحان قرية سبحان الله هل كان اللي يتشنى اللي هنا يا ما هكي كمسؤول كا واكي مسلم كا يلا سنة أي اللي نتكاسي وقرقرتها سداوي رسولك عليه الصلاة والسلام حديث قال ما مسلم أوري أي مساجد ككبحي أبو هريرة حديث كورمي وحنا أرتو وحصوب حي أبو بكر والضعفاء مسلمين تي فقراء ديو أبو بكر ما يقول السلام عليكم وحدوني أنا قصي الله بقول قاتشان كو أهي بقول أبو هريرة أدبوي السلام يقول ولا في بقول إمو فأمن بقول عمر بن الخطاب صوب حي أدبان السلام يسوي فهمه يسوي السلام ولا يسوي السلام ويمو فهمنه ولا في بقول رسولك صوب حبيبي سبحان الله مر الله لي مركي النبي صوب حي أيو قرب كي قبتي قم يا أبا هريرة أبا هريرة واستاق قال شدي أديك كاسو صارتي مساجدك أي أنا يقصو صارتي من رسولك عليه الصلاة والسلام ملامح الوجه رسولك متكلا قرت صحابتي سكباهن كدبات هاي ستبوها إن كيف بيقولوا كوريرو أنصار تكملة
oo caano yar laga siin jiray buu rasuulku u tagay caanihii yaraa baa naloo soo hordhigay buu yidhi saasaan u eego waa in yaroo aan isleeyahay malaha adiguunbay kugu filantay gaajaday hayse buu yidhi subxaan allah dabeete wuxuu igu yidhi abaa hureyra uu noqo waa nimankii baktiyayey ee masaajidka xaggiisa dambe fadhiyey ee ahlu sufaha ahaa ee aan cid lahayn anigu inaan ka warhayo mooyaane orodoo 10 u yeedh markaasay igu darnayd buu yidhi abu hureyra maanaa socon karaya buu yidhi gaajo darteed 10kii baan u yeedhay buu yidhi 10kii buu rasuulku yidhi u dhiibka koowaad sidaasay u mareen buu yidhi nin walba u dhargay buu yidhi caanihiina waa intoodii oo araradoo 10 kale u yeedh 10kii kalean u yeedh oo araradoo 10 kale u yeedh 7 markii aan anba bixiyey yaan isleeyahay rasuulkana gaajaa soo saartay aduguna gaajaa ku soo saartay halkii wax ka qaldan yihiin ayuu rasuulku yidhi cab haddaba igama horreyn buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaanu ii sheegay buu yidhi markii aanu uu soo baxay gaajadii adiga kaa soo saartay masaajidka iga soo saartay dabadaan u qabtay buu yidhi subxaan allah markaasaan dhigoon is yidhi rasuulka u dhiib wuxuu yidhi ku celi nebigu calayhi salaatu wasalaam haddana dabadaan u qabtay buu yidhi waan dhigoon rasuulkaan is yidhi u dhib haddana ku celi buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam 3 goor buu yidhi markii aan ku celiyey ee rasuulkiina gaajoonayo 70na anba bixiyey subxaan allah ayaa wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar afraad ku celi wallaahi laa aqdiru calayhi yaa rasuul wuxuu yidhi waxaan is idhi farahaaga caana dareeri sidaan u dhargay saan yaa rasuul allah laadi baan taagan ma karayo nebi allah markaan intaa yidhi buu yidhi keen rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa rasuulku bisinka u qabtay intii uu ka cabi karayey buu ka cabay caanihii weli waa sidoodii intiina way leekaayeen wahada min mucjisaati rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam laakiin innagu maxaynu uga jeednaa innaga waar waa ku ridateen nimankiinii meesha haystay oo haddana waa ku ridateen oo haddana waa ku ridateen oo haddana waa ku ridateen war maatiduun hala jeedhina baaraka allahu fiikum subxaan allah waxyaalaha fadliga lagu helayo maalmahan 10ka ah waxaa ka mid a dadka jilicsan oo loo gargaaro maxaa ka mid a waxyaalaha fadliga lagu helayo waxaa ka mid a alcafu in dadku ay iscafiyaan oo qofkii wax idinka dhexeeyey aada cafido oo labadii wax ka dhexeeyeen la heshiisiiyo waxyaalaha fadliga lagu helayay ka mid tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida allah uu ka warramay fi kitaabihi fi suurati alacraaf khud ilcaf waamur bilcurf waacrid can iljaahiliin nebi allow inaad dadka cafido qaado oo ha noqoto dhaqankaaga waamur bilcurf wanaaggana dadka far waacrid can iljaahiliin kuwa meelaha ka qaylqayliya waxay doonaan iska yidhaahda kuwaasi ha la qaadin baa layidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إلهي وحلي يكون بحين يمال كوده وقتك برواقضة يا وقتك نباتده والكاظمين الغيظ مركا أي عروضان عندك لا تشيري قرصده ولا حد قدبي على سيسي مقرصني والعافين عن الناس marka lagu xadgudbo dadka iska dhaafaya wallahu yuhibbu almuhsinin kuwa noocaasi waa muhsiniinta waana kuwa ilaahay subhanahu wa ta'ala jecel yahay ayaa quraanka ilaahay ku tilmaamay waa xusid mudan ibn qutayba fi uuni al-akhbar sida uu ku sheegay ahnaf ibn qays saxaabadii xilmiga lagu yaqaanay buu ahaa markaas la yiri xilmiga yaad ka baratay waxaan ka bartay bin Safwan bin Sulaym oo sidoo uga baratay
wuxuu yidhi inankiisii baa waxaa dilay inanku adeerka rumo u ah dabeetna inta la soo laalaadiyey ayaa loo keenay buu yidhi isagoo majliskii fadhiya carabtu dad isdilay ahaayeen oo qabaa'ila Safwan bin Sulaym al-Qarani wuxuu ku yidhi garabkaagii baad bannaysay waxba maad soo kordhin marka inan kaloo uu dhalo ag jooga buu yidhi waar siidaa sidii baa lagu siidaa inankiisii buu dilay sabab la'aan dabeetna wuxuu yidhi waar iska siidaa adeer rumana wuu yahay wuxuu yidhi horadoo geeleenii tagoo 100 neef oo geela ka soo kaxee hooyada ayaanay ogaanin buu yidhi inaan anigu bixiyey subxaan allah 100kaa geela hooyadaa hortog subxaan allah si ay inankeedii uga sabirto bal cafwigaa eg inankiisii buu dilay wuxuu yidhi waar sii daaya adeer rumu u yahay subxaan allah والعافين عن الناس والله يحب المحسنين محوك حكسيه واربقول كاجيله هو يدا وجيو حتى هذا وحب حيي نمكي دلي يقول هذا الشيء كبحين وهو يدا هكو صبرته أياه كل سبحان الله في منهاج القاصدين لابن قدامة نبع عبد الله بن عباس وضي دكتين بو آذو أي يعني آذو تلقاف wuxuu yidhi ma dhammaysato ma waxbaa kuu hadhay ay kaloo aad sheegtood igu tidhaahda miyay ku hadhay subxaan allah ma ibnu cabbaas baa dee cay lahaa subxaan allah xibru hadihi lumma markaasaa cikrimo ku yidhi waa ninka waxaad weydiisaa waxaynu u qabanno bal wuxuu qabsan ku dha ninkaa waxaa inagu sameeyey nacaayey subxaan allah waxaa la idhi istaxya rajul ninkii baa subxaan allah wejiguu hoos u dhigay markuu arkay kelmaddii uu ku jawaabay subxaan allah waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu almuxsiniin innaga madaxtooyadeenna maxaa laga yidhi dulqaadku waa doqoniimo subxaan allah mucaawiya bin abi sufyaan oo khudbaddii hadlaya subxaan allah fii cuuni alakhbaar waa markii islaamku uu yeeshay ciidamo dadka sidaa u laalaadiya oo agtiisa ay taagiyeen intaasoo 100 oo ciidankiisii ka mid masaajidka oo khudbaddii akhriyaya ayaa nin muslima istaagay waa dadka beenta ka daa waxaan akhriyayso وكان صحابيا فعلا marka mucaawiya ka soo degay mimbarkii دائما أئمة مساجددي كل واي قريهود خطبتي أنتو تشوجي مسوي سيست سبحان الله مركز خطبتي هالكي كود وحيلي ويرى عروضه مركي ولا هذي صحابتي ولا هذي شيطان كسيانو كاغ قالب نقول أيانو سوي سيست يقول وقال إن كاسي وجوابين أيلو معاوية بن أبي سفيان waxaan ku soo gabagabaynayaa barakallahu fiikum maalmahan waa maalmihii waalidka loo sabafalayay waa maalmihii quraanka la akhriyay waa maalmihii dadka loo gargaariyay jilicsan waa maalmihii la iscafiyay waxaan ku soo khatimayaa quraanka akhriskiisa اقرأوا القرآن فإنه لكل حرف له 10 حسنات والقرآن كآخرية حرف الموت منجل القرآن كواسدح بقول إيا لباتن كنت ضو بقول إيا أفرتن حرف بل طبعا كله فوق يا ترين كريه سبحان الله أبو بكر العشياش وآيض السكرادة إنك يسويبي ومحدثين تي قراضة ناهي مركا إنك يسيبا إلميو ninka taabic ninka hada subxaan allah caalimka aabihina laa tabki yabni inankaygiiyo ha ooyin buu yidhi waxaanad iigu ooyin buu yidhi 40 sannadood ayaan qur'aanka habeenkii khatimay anigoo ilaahay u taagay 40 sana 40 sannadood ayaan habeen walba qur'aanka dhamaynayay
anigoo tahajud ku dhamaynaya subxaan allah isagaa ii shafeeco qaadaya ha-ooyin ayaa ku yidhi abubakar alcayaash dembigeenna ilaahay ha dhaafo kii waalidkeenna ilaahay ha dhaafo danteenna ilaahay hayna garansiiyo kuwii khayrka u dadaala ilaahay inaga dhigo